kusoo dhawaada barnaamijkan xiisaha lahaa ee su'aalaha kadis taasoo maanta aan kaga jawaabi doonaa barnaamijka hore su'aalaha idin soo weydiiyey asxaab fara badan ee isku dayay inay jawaabaan balse jawaabahooda intooda badan qalad ay ahayn waxa ay ka mid yihiin asxaabtaasi kubadda iyo alwaaxda lagu ciyaaro golofka ayaa qiimahooda wadajir u ah 1.10 senti euro alwaaxa ayaa ka badan kubadda oo la iibiyo 1 euro haddaba imisa ay noqon karaa qiimaha kubadda koowaad jawaabteedii lacagta kubaddu waa 5 senti oo kaliya qiimaha kubaddu waxay qaadanaysaa x qiimaha looxu wuxuu ka badan yahay x 1 euro sidaa darteed waxay qaadanaysaa x lagu daray 1 slack ayaa sameysmaysa oo noqonaysa kubadda lagu daray alwaax oo taasoo ay limit tahay x lagu daray 1 euro oo ay limit tahay 1.1 euro 2x lagu daray 1 waxay limit tahay 1.1 euro halka x ay u dhiganto 0.05 oo ay limit tahay 5 senti su'aasha labaad haddii 5 makiinadood ay u baahan yihiin 5 daqiiqo si ay isu saaraan 5 waxyaabood oo kala duwan waqti intee leeg ayay ku qaadanaysaa 100 makiinadood inay soo saaraan 100 waxyaabood oo kala duwan jawaabta labaad 100 mishiin waxay u baahan yihiin 5 daqiiqo oo qura si ay u sameeyaan 100 qalab oo kala duwan sababtuna waa haddii 5 mishiin ay qaadatay 5 daqiiqo si ay u soo saaraan 5 waxyaabood waxaa shakilaana in 100 mishiin ay 5 daqiiqo oo qura ay ku qaadanayso si ay u soo saaraan 100 waxyaabood oo kala duwan su'aasha saddexaad haddii bali dushiisa ay daboosho caleenta geed ubaxeed maalin kastana uu laablaabmayo tirada ubaxa dushiisa ee baliga haddii xilligii caleenta geedka uu ku daboolmayo dhammaan baliga ay qaadanayso 48 maalmood imisa maalmood ayaa loo baahan yahay si baliga kala bar caleenta u daboosho caleenta geedka waxay ku qaadanaysaa 47 maalmood si baliga ay kala bar u daboosho sababtuna waa haddii caleenta ay laablaabmayso maalin kasta taa macnaheedu waa in kala barku uu yahay markii xoogaa dib waqti u noqono jawaabaha ugu badan ee dadku bixiyaan waa qalad fadlan saddexda la u eeg